madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kadib safar shaqo oo ku joogay magaalada Muqdisho. Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxa uu kula kulmay xarunta ay ku leeyihiin qaramada midoobay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u fadhiya dalka Soomaaliya James Swan. kulanka ayaa labada dhinac waxay uga hadleen kaalinta ay qaramada midoobay ka qaadanaysa howlaha horumarka ee Hirshabelle. shir jaraa'id ee si wada jira labada dhinac ay u qabteen ayaa waxay kaga hadleen waxyaabihii ku wada hadleen. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in kulankooda ay isku afgarteen. Mr. James Swan arrimo badan aan ka hadalnay oo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabelle waxyaalaha aan ka hadalnay waxaa kamid ah amniga dalka gaar ahaan midka Hirshabelle arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka faraha badan oo ku haya ayaxo deegaankan horumarinta guud ee deegaanka Hirshabelle dhammaan waxyaalihii aan isugu nimidna waa isla fahanay in wax badan ay nagala qabto UN-ko deegaanada Hirshabelle dhibaatooyinka ka jiro iyo guud ahaan howlihii aan isugu nimiday waa isla qaadanay meel fiican ayaan wax isla dhignay waan uga mahad celinaynaa safarkooda. sidoo kale ambassador James Swan ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay wuxuuna shirkiisa jaraa'id uga hadlay waxyaabihii ka hadleen kulankoodii. waxaa qaramada midoobay ka caawinaysaa Hirshabelle arrimo kala duwan sida ka hortagga ayaxa, fatahaadaha, dayactiro lagu sameynayo kanaalo, dhismayaasha dugsiyada, suuqyada iyo xarumaha haweenka loo dhisaya. To see the statement this morning from Jubaland and Puntland. sidoo kale wuxuu shirkiisa jaraa'id ku soo dhaweeyay magacaabista ee maamulada Jubaland iyo Puntland ee xalay soo saareen liiska gudiyada farsamada ee doorashooyinka. Yusna Maxamed Axmed, Bulsha TV, magaalada Jowhar.